Somalia 179 votes. waxaan hambaliyay iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan guushan waxaan kale oo aan kugu wareejiyay codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qayb galayno guushan taariikhiga ah ee aan ka gaarnay maantay hanashada kursiga golaha ammaanka ee jamciyadda quruumada ka dhaxaysa Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 53 sanadooda loo doortay inay xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay codayntii loo qaaday ay Soomaaliya heshay 179 cod sidaas ayayna uga mid noqonaysaa golaha ammaanka laga bilaabo Janaayo sanadka 2025 kulan wacan oo xiiso leh mar kale Soomaaliya ayaa loo doortay xubin aan joogto ahayn oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo 2 sano ah kadib codayntii Khamiistii ka dhacday golaha loo dhan yahay Soomaaliya ayaa ku biiri doonta 2 dal oo kale oo Afrikaan ah Algeria iyo Sierra Leone iyadoo Soomaaliya oo muddo xileedkeeda u bilaabanayo Janaayo sanadka 2025 wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Maxamed Cumar ayaa ka qayb ahaa wafdiga Soomaaliya ee doorashada u aaday Mareykanka codaynta kadib ayuu la hadlay laanta afka Soomaaliga VOA waxa uu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay tahay hay'adda ugu sareysa ee go'aamisa Kanadooda arrimaha caalamka waxaana Soomaaliya ay xubin ka ahayd hay'addaasi muddadii u dhaxaysay sanadkii 1971 ilaa sanadkii 1972 sidaa darteedna dib u soo laabashada Soomaaliya waxay marag u tahay in Soomaaliya ay horumar ka samaysay dawlad dhiska Soomaaliya ayaa wax ku biirin doonta jirkaas Soomaaliya waxay khibrad u leedahay dawlad fashilantay dawlad jilicsan iyo arrimaha xasaaradaha bini'aadantinimo 75 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay samaysay soo kabasho baaxad leh Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 53 sanadooda loo doortay inay xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhankiisa madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si diiran u soo dhaweeyay in Soomaaliya loo doortay xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo 2 sano madaxweynaha ayaa sheegay in guushan ay muujinayso horumarka iyo dawladnimada dalka Soomaaliya isagoo uu tilmaamay qorshayaasha hagaya codka Soomaaliyeed ee fagaarayaasha caalamka kaas oo ku salaysan ilaalinta nabadda iyo xoojinta iskaashiga madaxweyne Xasan Sheekh ayaa u mahadceliyay dhammaan dalalka xubnaha ka ah golaha ammaanka kuwa gobolka iyo qaaradda ee taageeray codka Soomaaliya madaxweynaha ayaa xusay in tan ay tahay fursad qiimo leh oo horseedaysay in dalka Soomaaliya uu kaalin muuqato ka qaato arrimaha amniga iyo nabadda caalamka Soomaaliya ayaa kursigan ku guuleysatay ee golaha ammaanka qaramada midoobay waxayna ku matali doontaa muddo 2 sano qaaradda Afrika kursigan ma jirin wadan kula tartamay Soomaaliya waxayna ku gaartay galaangalkeeda diblomaasiyadeed dawladda Soomaaliya ayaa halgan dheer u soo gashay inay hesho kursigan wuxuu ololuhu raadinta kursigan soo bilowday sanadkii 2018 wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa hogaamiyay wafdiga dawladda Soomaaliya ku matalay ergada ka qayb gashay kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee lagu doortay 5 xubnood oo Soomaaliya ay ku jirto adabo waa maxay faa'iidooyinka Soomaaliya ay ka heli karto xubinnimada golaha ammaanka ugu horreyn maqaamka ku dhex leedahay caalamka ayaa sare u kacaya xubinnimada golaha ammaanka waxay sare u qaadaysaa maqaamka Soomaaliya ee ku leedahay masraxyada caalamiga arrintan waxay u sahlaysaa in dantooda ay ka dhex fushaan golahan dhexdiisa saamaynta arrimaha amniga adduunka xubin ahaan Soomaaliya waxay door toos ah ka yeelanaysaa qaabaynta go'aanada la xiriira nabadda iyo ammaanka caalamiga oo ay ku jiraan soo saaridda go'aanada iyo waajibaadsiinta howlgallada nabad ilaalinta caalamiga Soomaaliya waxay u doodi kartaa soo saaridda go'aamo siyaasadeed oo taageeraya danaheeda amniga qaranka iyo kuwa qaaradda Afrika awood diblomaasiyadeed waxay Soomaaliya siinaysaa fursad ay ku dhisato xiriir xooggan iyo heshiisyo laba geesooda iyo mid dhinacyo badan leh iyadoo ay ka faa'iideysanayaan xubinnimada si loo gaaro faa'iidooyin siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale Soomaaliya waxay fursad u helaysaa inay si dhow ula macaamisho quwadaha waaweyn ee veto power ka leh iyo dalalka kale ee xubnaha ka ah golaha ammaanka waxayna fursad u helaysaa abuurista iyo kobcinta xiriir diblomaasiyadeed oo horseedi kara labahoobidda iyo iskaashi istiraatiijiyeysan oo lala yeesho wadamada awoodda badan ee dunida ka mid noqoshaha golaha ammaanka wuxuu kor u qaadi karaa saamaynta Soomaaliya ay ku leedahay golayaasha sare ee caalamiga kor u qaadidda awoodda iyo khibradda diblomaasiyadda waddanka Soomaaliya ka mid noqoshaha golaha ammaanka
waxay Soomaaliya ka caawin kartaa helis khibrad diblomaasiyadeed iyo aragtiyada ay ku dhisan yihiin xiriirada iskaashi ee wadamada iyo hababka xalinta khilaafaadka. codayntii loo qaaday ayay Soomaaliya heshay 179 sidaas ayayna uga mid noqonaysaa golaha ammaanka laga bilaabo Janaayo sanadka 2025.